waxaan ka soo hadlaynay qalbiga iyo hagaajintiisa iyo inuu yahay malikul acdaa xibnaha kale boqorkoodii uu yahay. aayaddaani waxay tilmaamaysaa qofka waxa anfacahaya maalinta qiyaamaha waa qalbi fiyow ee caafimaad qaba, waa qalbi nabad qaba. haddaba maxay tahay calaamadaha qalbigaaga lagu garan karo inuu yahay qalbi nadiif ah, lagu fahmi karo inuu gaaray maqaamkii la rabay, inuu yahay midka ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala? calaamadda koowaad, adiguba naftaada akhri oo fiiri: an yakuuna saaliman min maxabbati maa yakrahuhu allahu tabaaraka wa tacaala. waa in qalbigaagu ka nabad qabaa oo ka badbaadaa inuu jeclaado wax ilaahay nacahayo, wax alla waxaa xagga ilaahay aan laga oggolayn qalbigaagu waa inuu nacaa. maxaa soo gelaya in qalbigaagu uu dhibsado oo nacahayo shirkiga, bidcada iyo macaasida iyo fusuuqa iyo cisyaanka iyo dunuubta? qalbigaagu inuu dhibsanahayo oo nacahayo waa calaamad tusinaysa qalbigaagu inuu saliim yahay. nebiga sala allahu calayhi wasalam su'aal baa la weydiiyey, waxaa la yidhi: ayu nnaasi afdal? dadka yaa ugu fadli badan? laba arrimood qofka kulansada ayuu nebigu tilmaamay: kullu makhmuumi alqalbi saduuqi allisaan. qofkaas ayaa ugu fadli badan. saxaabadu waxay yidhaahdeen: saduuqu allisaan nacrifu, famaa makhmuumu alqalbi? qofka aad tidhi waa qof makhmuumu lqalbi ah, waa inuu yahay qof saduuqu lisaan ah oo lisaankiisu run uu ku hadlo. waan garannay saduuqu lisaan, qofka runlow inuu yahay oo carabkiisu run badan yahay ounan been aqoonin carabkiisu, waa garannay. midkaan kaloo makhmuumu lqalbi waa kee? maxaa laga wadaa? huwa attaqiyu annaqiyu laa isma fiihi walaa bagya walaa gilla walaa xasad. nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam, makhmuumu lqalbi waxa weeye qofka qalbigiisu nadiif uu yahay. attaqiyu annaqiy, qofka taqiga ah ee naqiga ah ee nadiifka ah, laa isma fiihi, wax dembiyana qalbigiisa uusan ku dhex sugnayn, walaa bagya, gardarro ma yaqaano oo cid gardarraysan mahayo, walaa gilla walaa xasad. xasad iyo urkutaallo midna ma leh. qalbigiisu waa ka nadiif. cudurrada qalbiga ku dhaca oo xasadka ah oo bagyiga ee gardarrada inuu sameeyo qofku jeclaado ah waa ka nadiif. qalbigiisu kibirka, isla weyninka, cujbiga iyo isla yaabiddu isla yaabayo, qalbigiisu kulli waa ka nadiif. qofka makhmuumu lqalbi ah ee qalbigiisu nadiifka uu yahay, saduuqu lisaan ah ee carabkiisu run uu ku hadlayo, qofkaas ayaa dadka ugu fadli badan, ayaa nebigu sal ly slam. nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam tilmaantaa uu bixiyey waa miisaan qof kasta la rabo inuu qalbigiisa ka fiiriyo. haddii kibir kugu jiro, haddii riyaa iyo istusi uu kugu jiro, haddii mataqaanaa xasad uu kugu jiro, haddii ismiya dembi aad ku dhex jirtid, haddii bagyi iyo gardarro aad jeceshahay, qalbigaagu nadiif ma aha. kama badbaadin, kamana nabadgelin wixii ilaahay nacahayo. qalbigaagu wuxuu noqdo mid jecel waxa ilaahay nacahayo oo ilaahay uusan oggolayn, qayb ka mida mid jecel ayuu noqdo. calaamadda labaad ee qalbu saliim lagu garta waxa weeyaan an yartaxila can addunya xataa yanzila biاlaakhira. qofkan qalbigiisu inuu guuro, adduunyada ka guuro
ilaa qalbigiisu aakhiro dego ahalkeedana uu ka mid noqdo uuna dareensan yahay oo aaminsan yahay adduunyadan inuu qariib ku yahay u yimid inuu ka adeegto maalmo kadibna oo waddankiisii asalka ahaa ee aakhiro u laabto qalbigiisu sidaas uu yahay qofka uu yahay wuxuu leeyahay qalbi aakhiro badankiisii iyo jismigiisii waa joogaa laakiin qalbigiisii waa guuray aakhiru jira waxaadna ka fahmaysaa dardaaranka nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalama uu yidhi ibnu cumar kun fi dunyaa kaannaka gariibun aw caabiru sabiil adduunyada waxaa ku ahaataa sidii mid qariib ah adduunka dhexdiisa ama mid wadda goynahaya labadaa arrimoodba qofka qariibka ah meeshaan markuu yimaado safar ku yimaado oo waddankiisii uu ka yimaado inta uu joogahayo iyo waxa uu ka qabsanahayaa wax kooban weeye niyaddiisu waa maqan tahay deegaankiisii iyo asalkiisii buu jiraa wadda qofka goynahayana waddadan uu jarahayo uu goynahayo inuu ka sameeyo dhexdeedaas uu goynahayo ka samaysto hanti ama guryo ama beero ama daaro ama wax uu markaa ka tabco wadda uu goynahayana qof yeelahayo aqbalayaa ma jiro macnaha xadiidku waxa weeyaan maaha in lagu leeyahay gurina ha yeelan beerna ha yeelan gaarina ha yeelan macnaheedu waxa weeyaan noloshaada waxaad u xisaabtantaa inaad tahay qof adduunyadan qariib ku ah oo ka tegahaya inaad tahay qof waddo goynahaya inay la mid tahay aakhiro marka loo eego dhaqankaagu kaa ku ahaato xadiidka nebiga sal allahu alayh wasalam wuxuu ku daray wacudda nafsaka min ahli اlqubuur naftaada waxaa ku tirisaa ahlu qubuurka isku tiri adoo aan dhibannin oo qubuurtii aan tegin ayaa waxaa isku tirinaysaa ahlu qubuurka qofkuna hadduu ahlu qubuur isku tiriyo aakhiro ayuu u fakerayaa hamigiisuna kaa ayuu ahaanaya ولهذا بإمام البخاري وحوري معلقا مجزوم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده الشري ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة الدنيا دي وارهرتي أيضا دبتشي دي صوت غاغي ويشي ستي الدنيا دي آخرنا ويسوق قورتي ويسوق غاغي أيضا نسوقها بالشيء ولكل واحدة منهما بنون آخرة يا الدنيا متك سوا وحي الله ده ورثاء يا الميلي فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وروحات كم من نقطان ورثة آخرة نقطة هنقننا ورثة الدوك وقفك الدنيا دي سير راعي آخرة دي سينا هالمامي hamigiisu uu yahay laylan wa nahaaran adduunye uu yahay war kuwaasi waa warasa adduunye ha noqonina warasa aakhira noqon alyawma camalun walaa xisaab wagadan xisaabun walaa camal maanta waa la camal falayaa wax ku xisaabinayana male baa la diiwaan gelinayaa bas camal kastoo aad samaysid mid fiican iyo mid xun maanta waa la iska qorahaya حسابي ما ضبط الله بري وحا يالا لو تغايا حساب عملنا مجي او لا عمل فلي ماهي هذا حساب تا دنبيسا وحا لا تغي دونتid بري الهي هرتيسا waa wixii adduunyada aad ku camal fashay ma wanaag bay ahaayeen ma xumaan bay ahaayeen maanta hagaajin kartaa xisaabtaas xisaab alla xisaabti aqaladid maanta dambi alla dambiga aad ku dhacdid maanta xal baad u heli kartaa toobadkeen iyo istighfaar iyo ina ilaahay u noqotid waad xallin kartaa camal fiican baad ku bedeli kartaa laakiin bari camal lama ogola xisaab u baa loo fariisanay الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وحي أسقنا والناس في هذا الزمان سافروا إلى طلب الدنيا وهي عنهم زائلة زمن كان ضدك وي سفرين وحي أسفرين الدنيا إني راديان أيضنا وحي أشيغيسا إني كتغيسو فايسا لتشوغهاي وقعدوا عن السفر إلى الآخرة وهم إليها الراحلون ضدك وحي كفريستين آخرة إني أسفران
ahna meeshii loo guurahayay oo dhabta ah markaasuu wuxuu yidhi yascawna limaa yudrikuun wayatrukuuna maa hum bihi mutaalabuun dadku waxay u xusul duubayaan oo u degdegayaan wax aan dhaafahayn oo ay haleelayaan oo ay gaarayaan oo wixii loo qoray ah oo aan seegahayn waxayna ka tegahayaan wixii laga dalbay oo laga rabay oo waajibaadkii ilaahay saaray ah yacmuruuna maa hum canhu muntaqiluun waxay dadku camirahayaan daara ay ka guurahayaan oo ay ka tegahayaan wayukharibuuna maa hum ilayhi saa'iruun waxayna kharibahayaan gurigii rasmiga ahaa oo ay ku hoyan lahaayeen oo u ahaanayaan oo ayna seegahayn kaama camirahayaane waa kharaab kii ay ka guurahayeen oo daartan adduunyada ahna way camirahayaan wahum cani alaakhirati hum gaafiluun aakhirana way moog yihiin oo in badani aakhiro way moog tahay qofku markaa shaqada halkan uu ka qabanayo mid ka badan waa inuu aakhiro ka qabtaa icmal lidunyaa calaa qadri muktika fiiha wacmal lilaakhira calaa qadri muktika fiiha adduunyada waxaa u shaqaysataa inta aad ku nagaanaysid wax la eg aakhirana waxaa u shaqaysataa inta aad ku nagaanaysid qadar la eg adigu markaa isku fiiri adduunya aakhiro siday u kala badan yihiin iyo siday u kala dheer yihiin aabbaha 60 sano 70 sano 80 sano ku dhintay adduunyada waa yimid waana ka tegey dhowrkaas sano ayuu joogay waxaa laga yaabaa muddo dheer hore u dhintay awowyaalka boqolaal sano ka hor bay dhinteen qaar ka mid ah dhulkay ka hooseeyaan way tageen kumanaan sano ka hor bay tageen aakhiray aadeen siday aakhira u dheer tahay fiiri cimrigaagii adduunka waa kooban yahay laakiin aakhira waxay ka bilaabanaysaa qabrigaaga ilaa qiyaami saaca ka bacdiina nolol baad ku noolaanaysaa imma ila aljanna wa imma ila annaar ama naar ama janno mid aad ka dhimanaysaana ma jirto calaamaadka lagu yaqaana alqalbu saliim calaamadda saddexaadi waxa weeye qofkan inuunan dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ka daalin adeegga uu u khidmaynayo diinka ilaahay iyo cibaadada iyo khayrka inuunan ka noogin bal xuska ilaahay iyo dikriga ilaahay uu ka jecel yahay waxa uu jecel yahay oo dhan waana u ooman yahay qalbigiisuna kuma xasilo waxaan dikriga ilaahay ahay alaa bidikri illaah tatma'innu alquluub quluubtu waxay ku xasishaa waa ilaahay xuskiisa ay xusaysa ayay ku xasishaa wa afdalu dikri illaah alqur'aanu alcadiim weeye dikriga ilaahay kan ugu weyna waa qur'aanka kariimka ah waxaa ku sugan caafimaadkii kii qalbiga lagu caafin lahaa oo lagu daweyn lahaa iyo kii badanka ayaa ku sugan waa nuuru albasaa'ir iftiinkii qalbiga ayaa laga helahayaa waa rabiicu alquluub dooggii qalbigu waxa weeyaan ku raaxaysan lahaa ayaa qalbigii uu yahay ay qur'aanka kariimka ilaahay ka dhigay markaasuu qofkaasi qur'aankaasuu la saaxiib yahay la nool yahay ku dhaqmayaa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu tilmaamay qofka ilaahay xusahaya iyo qofka aan xusahayn mathalu alxayi waalmayit waa mid dhintay iyo mid nool tusaalahood bay isku yihiin qof aan ilaahay xusahayn waa meyd waa dhintay qofka ilaahay xusayana waa qof xayi ah oo nool weeyaan waa inaan ku dadaalnaa marka inaan noqonno calaaqadeennu xoog inay yeelato marnaba aanan ka noogin oo ka daalin ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala hadday tahay qur'aanka hadday tahay tasbiixda iyo adkaarta hadday tahay salaadaha hadday tahay soonka hadday tahay sadaqada waa in lagu dadaalaa oo lagu dadaalaa oo lagu dadaalaa calaamadda ugu dambaysa waxa weeyaan alqalbu saliim waxaa lagu yaqaanaa qalbiga fiyow idaa adnaba istakfar hadduu dembaabo istikfaar buu ka dabageeyaa waa qof qalbigiisu caafimaad qabo waidaa ancama allaahu calayhi shakar haddii ilaahay nimco siiyo uu farxana ilaahay buu ku shukriyaa shukrigeedu la yimaado waida btuliya sabr haddii dhibaatooyin iyo masaa'ib ay ku dhacaanna sabarkeeda ayuu la yimaadaa saddexdaas ayuu u dhaxeeyaa qofkuna kama bixi karo
ولذلك ابن القيم يقول لي والله أسأل أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر إلهي هكادقو قف هدو كشكريو هدو النمعايا كشكريو وإذا ابتلي صبر هدي الله امتحاننا صبره وإذا أذنب استغفر هدو ذنبابنا استغفار لي ماذا إلهي هكادقو فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا وأخرى صدح ذا الرموت وعلامة سنة الليبان تقف كان قول ليباني الدون كي آخر لبضم قول ليباني استغفارتي شكري إلهي مركو إلهي النبعي سبحانه وتعالى هذه مصائب النباطة أي كل عضي استغفار وكذب ليمد صبر يد القاض ويا شيء ويري إنا لله وإنا إليه راجعون أنت أوقب حي أو صدا أصمري وعنوان تصنع هيا قف كان إنه الليباني قلبي سنوية هي قلب السليم أو نبتك هذه قلبي أقول تعلي هي ربضة هي اللالوشكا هي مسقماسقة قلبي أقول واشرية هي نختربون أبا هي سدك دقا وجود دال إن الدويست دختر كيسونا معهن وحنا هين قرآن كريم كأ هي التوبة إلى الله إن إلهي التوبة كنت استغفار التي مادد دختر كيسوا متكاس أو الدوين يعلاجني هذه قلبي قالوا معاصي وحكم إذا تعلي هاي ضد بدن با وحي تعليهين هذه موبيل كيسوا فرو أفلام تحنحن إن إسكت دعوة صلاة صفك كاغو الريا عبادته كد دالها هي لكن وحام بالود أوليها إنه فير صدحه قلبي قالوا واجريه هاي وحنا أبا هي الدود دقدقة إنه هله وأنا إنا إلهي التوبة كنتد استغفار للتمادد عاد استحرت بابك السجع هذه قلبي قاعد كدر أنت إنه تشعليه هاي وح الله عليه وح إلهي أون معي وإلهي أون نعبيه ضد واحد تشعليه إنه وح بابان أو أي وح دعان أو أي وح ظلميان أو أي وح دمريان قلبي أي كشريين الله عافي ضد واحد تشعليهين قف إنه كحد جدبه قبيلهان وحد جدبه حسد وقبي عقدات وبتقان وحد جدبه وح إلهي وسيون معادي سائر كحوي هاي أي قلبي ستالله وشريه هاي وحنا قف كاس أبا هاي دود دقدق ماشى وكهل هيانا وقرآن كريم يوحويان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلبي قاعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قار كميدة ونعبيها وقلبي قاعد ونشعلين ضد النعب حجاب كمركي أركان هذا اللي حيضا يقرك سنة النبي أركان آدي وقام الدعوة أو النعب أو نبصده وشرنتهاي إلهنا سبحانه وتعالى وكل شيء عافمات كاقوم يشو كتيره وإن إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كانتا هذه قلبي قاعد ضربة تشعلي هاي دو تشعلي هذا كأنه بالشدة كذا واحد غشي خيانة وكسر قنطة أو دعي هذه قلبي قاعد تشعلي أمانة إنه يسوق جدا وعذر رقل وقت كل دعاء أو فرب بدن وآدي آدم بدن وحنا كل قد سوى كوبه هيا قلبي قاعد فيري مكان نبض قلي وح الله وح إلهي ونعبيها سيد إلهي ونعبيها وين ونمعته قلبي قاعد هل كاسة كم بيزاميسا إلهينا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحنكوي دي سننا قلوبت الله إنه ناقاتش اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين بربرتان أوغو باقا بالعتي ويلشنا تنكبر كتيغتالان بعد الكي حق برتا